السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada khayrta sharafta badan. Halkan waxaa ku qaadan doonaa maanta sida maxaa lahay loo buy gareeyo cryptocurrency sida loo iibsado ayaan ku qaadan doonaa. Marka hore channelka subscribe saar, like iyo share iyo comment noo sii raaci. Waxaa su'aal qabtaan commentiga noogu soo qora. Binance-na waan soo anuu kacsan ujeedaa waa soo galnay dhabaanahana lacaga maxaa lahay ama la gartay haddana ama la gartay maro laakiin wadada loo maray waa idin tusinaa. Weli Binance waa banaan yahay, qofkii lacag haysto USDT ku soo shubto maxaa lahay habay gareeyo ha iibsado coins badan Binance ka banaan. waxaa la rajeynayaa ilaa bisha May 2025 in lacagahan xagga sare inay u sii socdaan, marka ha laga faa'iideysto. Marka koowaad waxaan sameynayaa meeshaan hoosaan ku dhufanayaa ee $2 isdhaafayso. Markaan ku soo dhufto saad u jeedaan waxaa ii soo muuqanaya buy oo maxaa la iibsa ah, sell oo iska iibi ah, convert loo lacag isku bedel, deposit lacag ku shubo macnaha akoonkaada, lacag ku deposit gareyso, lacag dhigo. Marka waxaan isticmaalaynaa buy marka dhahdid lacagta iibsanaysid inta day kaaga soo muuqato waa okay. haddaysan kaaga soo muuqan korkaana ku qoreysaa. tusaale ahaan render oo kale ayaan ku qorayaa render token waa kana switch to pro ayuu leeyahay. marka inta markaa imaato maxaa lahay buy ayaad leedahay, meeshaan buy ayaa ku dhufanaysaa. aniga hadda inaan buy gareeyo maro buy markaa ku dhufato waxaa lahay lacagtii way buy gareysay iyo waxaa lacagtii renderka, laakiin akoonkaada waa inay lacag ku jirtaa. akoon aan lacag ku jirin waxba maxaa lahay ma iibsan kartid, buy ma sameyn kartid. waa in maxaa lahay akoonkaada uu lacag ku jiraa. marka qaabkaas baa u sameynaysaa. akhyaarta sharafta badan soo dhawaada channelkeena subscribe noo saara.